halkan waa kaamka barakacyaasha ee duleedka magaalada Buuhoodle gaar ahaan Shangal oo ka xiga dhinaca waqooyi magaalada Buuhoodle una jiro 5 kiiloomitir mar aan booqanay kaamka barakacyaasha ee Shangal ayaa waxaan ugu tagnay dad aad u fara badan oo ku cooloobay abaarta ka dhacday Soomaaliya dadkii halkaan ugu tagnay ayaa waxay naga warbixin xaaladda kaamka barakacyaasha ee Shangal iyagoo halkaan noo sheegay inay haysan adeegyada bulshada ay u baahnaayeen iyagoo noo sheegay inay haysan goobo caafimaad goobaha waxbarashada sidoo kale dadka ayaa waxay noo sheegeen in ay kaamka barakacyaasha ay ku nool yihiin kuma qof ay ku cooloobay abaarta Soomaaliya ka dhacday ayaa waxay leeyihiin masaajid ay ku tukadeen halka ku ool iyagoo ay ku tukadeen boolcawska halka inaga muuqdo dadka ku nool kaamka barakacyaasha ee Shangal iyagoo ka warbixiyay xaaladda kaamka barakacyaasha ee Shangal oo kun hadaladooda waxa kamid ahaa waxaan joognaa kaamkii Shangalle qaxootiga waa kaamka ugu weyn weeye area Buuhoodle kaamka ka dhisan kaamkani magaalada iyada oo ay meeshu laba macaamad leedahay malcaamadii waan ku dhisnay arrin isxilqaana annaga oo dadka muxsiniinta uga soo ururnay wixii qof waliba uu la baxayay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay uu nagu guuleeyay malcaamadii way dhisantay hadda meeshan aanu taaganahay inoo muuqataa waa masaajidkii barakacyaasha waa masaajidkaas 3,000 ee qof ee meesha degan u masaajidka ahi waa masaajidka wuxuu ka dhisan yahay waa aragtaan waa maryo iyo baco iyo waab yar oo la dhis inta aad arkaysaan dadka meesha degan waxa masaajida waabta marka waxaan leenahay dadka wax la baxaya ilaahay dartii masaajidka inay u soo dhisaan saddex sanaad fi kulli sinbulatin ya tahabbatin wallahi da'afi ma yasha ilaahay subhanahu wa ta'ala asaas uu leeyahay qofka islaamka hadii uu bixiyo maantiisa ku bixiyo meelaha goobaha diinta ama fi sabilillah uu bixiyo waxa ay maarta dhacaysa in ilaahay uu barbaarinayo oo uga dhigayo ilaa 700 adcaaf ilaa 700 oo jeer loo laabay maanta qiyaamada uu aayo dadka muslimiinta iyo beesha caalamka waxaan ka codsanaa inay bixtiraan hawlaha ay dadka degan kaamka Shangalle waxaan dad aad u baahan baahidaas dhammaan ma saamaysay oo bidaan leh oo qaraan leh oo hooyaan leh oo caafimaad la'aan leh oo iskool la'aan leh oo malcamad la'aan leh oo masaajid la'aan leh oo waxaan gacanta ku haynaa aysan jirin deegaanka inta leeg oo ka kooban 2 qoys way noogu dagan yihiin oo qofkaan inta loo jirta ilaa baliga Shangalle masaajid male malcamad male iskool male dadkaas waxay u baahan yihiin wixii bini'aadam loo qaban jiray u baahan yihiin dadkaas wixii wax taraya muslimiinta u kaalmeeya ilaahay u kaalmeeyaan annagu waa kaamka Shangalle 2008 anagoo ah oo dadku inta leer cadadka la degan yahay halkaan ilaahay uu degan yahay wax kale oo gacanta ku hayaan wax kale meel ku keenayna jirin dadka ku nool kaamka barakacyaasha ee Shangalle ayaa waxay ka codsadeen dhammaan muslimiinta dal iyo dawlad inay soo caawiyaan Mr. Maxamuud Salaah telefishinka caalamiga Bulsha TV kaamka barakacyaasha ee Shangalle